shaqadiisana aynan ahayn meetiyeegiisana aan ahayn mar haddii uu yimaado meesha waxaa imanaysa aragti kala gooni abaad imanaysa qofka waxaad oranaysaa kabaha loo iibiyo maya cashaha la siiyo waxaa biyo iyo lacag yar ha la siiyo artadi boos maya wax walba kolkay maya kaa hor yimaadiin qofkiina waxa uu u baahan yahay adigu waxaad ahayd mar baad ku jirtay guddiga ciyaaraha fudfudud ood ka ahayd qaybaha sarsare kollayba inaad ka muuqato halkaana waa sida inta badan hay inay noqoto ahayd maxaa keenay maanta axmedow inaanad halkaa ku jirin duruufahan ku sheegayo yaa yihiday dadka waxa ay ku fiican yihiin marka ay isla jaan qaad yihiin qof ana waxani waxba ka garanaynin oo wax alla shaqadiisana aynan ahayn meetiyeegiisana aan ahayn mar haddii uu yimaado meesha waxaa imanaysa aragti kala gooni abaad imanaysa qofka waxaad oranaysaa kabaha loo iibiyo maya cashaha la siiyo waxaa biyo iyo lacag yar ha la siiyo artadi boos maya wax walba kolkay maya kaa hor yimaadiin qofkiina waxa uu u baahan yahay dee aragtida kala goonida aadna kala kaxaysay kol haddaan meesha aanan waxba u qabanaynin dhalinyartii oona faa'iidaynayn dee waxaa fiicnaaday inaan meesha abanneeyo waxaan kuu sheegaya runta lagama xisoodo waa si wanaagsan axmed waa si wanaagsan baad samaysay kollayba meesha caqabada hadday yimaadaan la isku qabsado adna nin magaclaad tahay kuma wanaagsanaba magac ahaan laakiinse waxa weeyaan maanta waxaan arkaynaa in haddee toole isbeddel lahay dhici doonaan kolka adigu ma isku wadaa inaad noqon doontid haddee waqtiyada soo socda inaad madaxda qolooyinkaasi aad ma kugu jirtaa inaad noqon doontid haddii alla idhaa haddii lagugu baaqo ama lagugu yeedhaba ama aad aragto meeshu egaa ku socod imaqal waxa weeyaan maanta ahaan isboorkeenu waxa uu ka dhigan yahay waxa weeyin hal sigada weeyaan oo maqaar lagu goosaysto caanaha laga maalo wey ma aha hal neefkeedu uu nool yahay oo mataqaanaa faa'iido neefkeeda laga sugaya ma aha waa hal caanoon lagaga maqaar ta adii sheegaysidna rajada waxa weeyaan wadani baanu ahay oo kama rajo beelin dowladdu amba madaxweynuhu aniga oona faaninayn waa fiican yahay laakiin duruufahan hoose iyaa wax baabi'iyey bay ka dhigan tahay xagga isboorka waan rajaynayaa waana kamana quusan in mataqaanaa taasi ay timaado isbeddelkaasi uu yimaado aan ka qayb galana kama aan quusan oo kama rajo beelin aad iyo aad baan u sugayaa waayahay axmed waxa weeyaan innagoo hadda tolo ku soo dhowaanay gabagabadii barnaamijka waxaan doonaya su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan intaad ordi jirtay axmedow goormay kugu wanaagsanayd goormayna kugu darnayd had walba waxay ahayd qadhaadh bay ahayd orodku antarnimaaga oo keliya haati ayaa ugu xanuun kululaa marka aan antarnimaagaa dhammaynay kombutasyoga aan joogsano arifeed aynin dabaarka aan joogsano iyo xanuunkiisu naga hadhaya habeenna ma xanuun la'ayn dhalaarna ma aan xanuun la'ayn faamigana had iyo jeerba waan ka maqnay marka aan dabaarka aan joogsanayno ma xasuusanaynin mataqaanaa wax kale ma koow baad bixi mise labaad bixi maxaa lagaa sugayaa bay ahayd taasi waxay ahayd wadaninimo faransiiska marka aan joogayno wax badan oo aan weli aan sheegin oo faransiiska iigu ballan qaaday baa jirtay oo inaan ka baxa Djibouti ma aqbali karayn laakiin maalinta iigu fiicnayd waxay ahayd maalintii hore siima aan ka orday aniga oonan moodayn inaan halkaa gaarayo oo la odhanayo Djibouti la doono la yidhi xaggay tahay Djibouti xaggan kolkii la eegay kaarkii waxaa la eegay low iyo caddoon bay raacday waa Soomaaliya la yidhi halkan habeenkii oo leyd baan daawanayn inaad Djibouti meel loogu hagaagaba la waayay oo la yidhi adigu waa Soomaaliya taliya xaggay ku taalaa la yidhi habeenkaabaa igu farxad badnay waayahay waxa weeyaan axmed waad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay
you.